نعم in waxaa jiri jiray macallin annaga noo noqday mar oo hindi ahaa jaamaca islaamiya uu ka soo baxay weliba uu ka soo qaatay risaala magister kuliyadiisuna shareecay ahayd risaaladiisuna waxay ahayd culumul qur'aan ay ahayd marka khaliiluraxmaan sajaad baa la oran jiray marka nin wuxuu ahaa xoogaa tabliiqa iyo fikradan tabliiqa aad u ah oo marka macallin noogu ah hindiyay ahayd qiso marka noo sheegay waa xikaayaad badan oo qisas oo cajiib ah runtii wax badan dadka bay leeyihiin qisada sheegay waxa kamid ah wuxuu yiri jamaaco tabliiqaha waxa ku jiro nin Faransiis oo soo islaamay marka meel la wada joogay waa la wada sheekaysanayay sheeko iska caadiya ninkan marka Faransiiska ahi meeshuu fadhiyay cabaar markuu fadhiyay buu su'aal soo tuuro yiri wuxuu yiri muslimiinta tiin markaas soo islaamadiisa dhow islaamkan muddada intee la egaan haysateen markaas si uu wuxuu yiri cafawiyana baa loo soo turay su'aashii waxa la yiri 14 qarni oo hinuu la dhaco yiri markaas wuxuu yiri ilaahay baan idinku dacweeyay 14 qarni baad ku jirtaan nicmadaas annaguna cadaabul kufri aan ku jirnay aabahay baa ku dhintay awowgay baa ku dhintay awowgiisa ku dhintay kulligoodna gaale ku wada dhinteen buu yiri intaasna khayrkaas aad haysanaa lama aanan soo gaarsiinin ilaahay baan idinku dacweeyay xaqiiqatan dareenkaas hadda meeshan aan anaga degannahay oon ku noolnahay dadka naguna nool oon islaamka haysanin waa dad horta dabeecadoodu aad iyo aad isaga degan tahay oo qabowday xaqiiqatan intaan hadda meelahaas kale ku arkay dadka ugu degan weeye wax hadda islaamka ka hor taaganna aanan u jeedin oo badan ilaa in loo sheego kaliya marka waxaa aad u wanaagsanaan lahayd in barnaamijkaas xil la iska saaro oo la kawino sheekh muuse tusaale yar baa jiray arrin yar hadda xasuusi hadalkaaga nin baa jiray waa qabiilkan balwiyaha waaye shaqaalu noo ahaa meel aan joogno ka shaqaynayay islaamkan ku walqaaliya u aqbale waxaa idhi meel baan kuu diraya kharashka anaa bixinaya macad oo Mombasa ku yaala oo muslimiin aljudud loogu talagalay yaan koos wuxuu soo qaatay 6 bilood ninkii uu soo laabtay intuusan macadkii soo dhammaysanin 6 bilood ee mafaahiimta islaamka iyo lasiin intuu soo dhammaysanin buu xagga igala soo hadlay wuxuu yiri niyo waxaan rabaa inaan emergency u soo baxo maxaa kugu dhacay warniyo aniga ma dhammaysan karo yiri 6 bilood dadka ka soo tagay wax xaaladii ku jiraan baan ogahay buu yiri waxaan arkay dadkaas iyo dhibaatadii ku jiraan sheekh ninkii intuu soo maray halkan igu soo Mombasa ka soo laabtay oo macad ka dhigan halkuu soo maray familkoodii buu u tagay tuuladoodii wuxuu soo islaamiyay walaalkii ina adeerkii miday saaxiib yihiin ugu yaraan 7 qof buu ii tiriyay keen baan idhi wuu noo kari macadkii baan u dirnay weli qaar baa ku jira marka dadkan sheekh hal qof hadda adiga aad sababka dawaatiin cali bin abi talib uu kula ahaa yaadi allah bika rajul khayru laka min humri na'am yani maanta fursadaas dadkan Kenya gaar ahaan jooga waa fursad la taalo aduuno dhanna wala hal qof adiga tawxiidka sababku taa solama oran marka waa fursad weey barakallahu shaali jazakallahu khayran ugu dambeeyeen sheekh Muuse iyo ragay ugu dambeeyeen arintan dacwad غير المسلمين dadka muslimiinta aan ahayn in dacwada loogu yeeray diinta la gaarsiiyo waxaan isleeyahay ummadan Soomaaliyeed oo kaab muslimka ahayd waxyaabaha nicamta Ilaahay uu siina aad loo weydiin doono inay kamid noqon doonto dacwo la'aantaas dadkaas aad aragteen oo 42 milyan ilaa 45 milyan ku sii socdo oo gaalada u badan ee muslimiinta aan ahayn intooda badan diinta diyaar u yihiin masjidka Abu Bakr Siddiq haddii maalin aan loola imaanin oo maalin labaad noola imaanin waxay u badantay maalin saddexaad noola yimaado oo islaam doona hadda bishan Ramadaan oo maanta taariikh 8 ah kowdeedii gabar xijaaban oo qurux badan oo la yaabaysa xafiiska inta albaabka soo garaacday gabar ka la socda Soomaaliya dalaq way soo gashay gabar isaasan u yar meel asaday oo marka Soomaaliya ma aan laakiin waxa ka muuqda nuur iyo حجاب خير باكمو كدبنا وحي تيري وحان rabaa inaan islaamo
ayadana soo doonatay iyada gabadha waxay ku tiri iwad kaali igay masjidka markaasaan ku iri cid ku qasabtay miyaa jirta waa maya ma cid ku qalqaalisay yaa jirta islaamnimada kugu qalqaalisay oo ku tiri islaamnimada soo gal maya tiri abadan dhaqankii dadka aan la noolaa oo muslimiinta oo soomaalida ahaa ayaan arkay iyo wanaagga uu qabay وعلى هذا الأساس لا نمنا سودانتي runtii dadka iyaga soo socdaan hadii dacwo yar marka loo raaciyo marka waxaan kulay mas'uuliyad aad u weyn aan saaran ilaahay waxaan ka baryaynaa subhanahu wa ta'ala inuu nawaafajiyo inaan gudano aadna aan isugu boorina shaacali usaamana runtii khayr la siiyo amthila fiican buu noo keenay waana wax ku dayasho mudan xaqiiqatan ficilka hadda uu muujiyay jazakallahu khayran afan laba daqiiqo mawduucan waxaan u malaynaa si fiican buu ayaa noo taabtay arday ardaydaanada ka mid ah macad luqa carabiya ardaygu wuxuu u dhashay Ethiopia marka wuxuu iga sheekeeyay sidoo ku soo islaamay hadda wuxuu jiraa 20 sano wuxuu yiri waxaan soo islaamay anoo 15 sano jiro marka wuxuu yiri waxaan ku islaamay runtii aad bay ii saameysay qisada uu ku islaamay wuxuu yiri waxaan dhageysanayay afka Axmaariga ama Xabashiga fahmaagu محاضرة دقيسنا يقولوا الشيخ جوجو إثيوبيا أو محاضرة أخنا الشيخ مركو حكى الله يقولي مسيح الدجال النبي عيسى مركو سود قدونا أيو كشكينا وي إسامة يسب قوس كودون ما قالوا شن يتمسن وجرها وي إسامة يسب وحنقو عن صديق لنا إسلام من مسلمنا هالمركز هذه ونقرنا ورهبلو waxaan rabaa inaad islaamisid oo masaajidka egeysatid ninkii uu iska fududeystay wuxuu yiri maanta biisi baan ahay bari baan ku geynayaa ii kaadi wallaana yeelina ma iran maanta inaan galaan rabaa islaamka bari ma rabo maanta inaan galaan rabaa adigu intuu warwareejinayo nin kala raadsaday buu هو شيء يسوي جرا أو قال قصك إيمانك بعدوه وعرفت حرقه قلبي كدرنا نين كلام راس هذا ويري نين كيبان إسرعني ساتكو يجي واي إسلامي هذا نكاح إسلامي هشان صار قرآن كوي حفظي أنا معلم قرآن كوي حفظي أنا قرآن ما حفظي معناها لكن ما الكلام معلم هو قرآن كوي دمي أنت بدن واحد دي مركب مع اللغة العربية وقالي ما أنت أنا أسأل اللغة العربية عن كل شيء سنة. وحود دمي هذا الثانوي وسيد ما ينا كلية الشرعية كلية العلوم الإسلامية. مرهبين وبلعبه مارتي هل كان وحود إكتا سكول كان يكتا مارتي هامي. مصطفى اللي هذا ومعروف. وأنا شن سنة جدود. شن سنة جدود هذول. عربي سوء والله دين تسوء استيعاب مركل لا أعرف بويجا ساميسي قصة ديسة. كو أديكم مركل كلمات عاد أورانا يسوء إلهي درتي عاد أترى هذا. يوما ما بقول سنة كدب على إنه إلهي أنقفكوا هنوميه وحقاد مركا يسوي وريقته مرة والبقون سو حسوسته نينكاس شيخ آية فهم حارقة محاضرة يكون أقنعي بس احتجال كشي كيني مصطفى إنه كو إسلامي مؤقو مصطفى شيخ الإثيوبي جوا نكان نيروبي جوا محاضرة أمبان لقيستوي مصطفى ما أنت يتو وحاوي وانين أمه وحكيف كريا معرتي إنه كلية شرعية انتو دميو وادد كان برجيga la yiraahdo qabaylka burjiga la yiraahdo wuxuu doonayaa inuu gobolkiisa intuu tago oo macad islaami ah iyo masjid uu ka furo oo sheekh ka noqdo hamiga ku jiro shaganimada ku jiro shan saruun islaamiya qodobka horta waa iga saamay qodobka labaad sida aan ugu gaabinayno diinta inaan faafino ninkaas yiri bari ii soo noqo hal wax walba uu hayo inuu meel dhigo oo yiraahdo nin islaam ah hadda helay midda kale waxa weeye ninkan shan sano quraanka ku dhameeyay meeqa qof oo islaamnimada ku dhashay oo 30 sano iyo 40 sano iyo ka badan muslim ah baa quraanka xifdsanay quraanka u dhameeyay bal hadda wuxuu ku jiraa ardada luqad carabiyada aan u dhigno ardayda ugu tayada badan buu ku jiraa dad badan oo Soomaali ah oo diinta in badan ku soo dhex jiray carabiga ugu hadlay og yahay xafladaha asaa loo dhiibay hadda asaa taqdiimiyo waa nin jabal ah oo la yaqaan oo macruuf ah marka ilaahay waa aqbalo ilaahay diinta ha ku sugo yalla adsallahu yathabit barakallahu fiik الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد دمان ولا لها عاد أمهاتيه المشايخ ذا مواقفها رسولك صلى الله عليه وسلم كهضلي لغونا تطبيقي واقع على جوجا
aniga daa'iman